السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام حديثك أورنا أبي هريرة الله كرها لنقضي وحوير رسولك عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. مالن أي قرح أصوب بحضو مالن تأبو خير كبدن ومالن جمعه بو رسولك عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بو رسولك عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحوري مالن أي قرح أصوب بحضو وحا خير بدن مالن تجمعه مالن تجمعه وحال أبو ريبو رسولك عليه الصلاة والسلام نبي آدم آبهنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيا مالن جمعه لأبو ريبو maalin jimco ah ayaa jannada la geliyey buu yidhi maalin jimco ah ayaa jannada laga soo saaray buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. xadiidka qaybtiisa kale wuxuu yidhi walaa taquumu saaca ilaa fi yowmi ljumca, qiyaamaha ama saacadda qiyaamahana ma istaagayso oo ma dhacayso ilaa maalin jimcaha buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maalinta jimcaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadli badan buu ku sheegay. xadiid kale inna min afdali ayaamikum yowmu ljumca, maalmihiina maalinta ugu fadliga badan waa maalinta jimcaha buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. fa akthiruu calaya salaa, salaad salliga aad igu salinaysaan badiya buu yidhi, maxaa yeelay waa la iisoo bandhigayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka axaadiid badan baa laga soo weriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo asxaabo badan ay werinayaan. weliba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka amray inay qubaystaan maalinta jimcaha. maalinta jimcaha waa inaad si fiican u qubaysataa oo aad si fiican isu nadiifisaa, waayo rasuulkaaga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku amray. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qubayska aad buu ugula hadlaya saxaabada. adigana waxaa lagaaga baahay maalinta jimcaha haday kuu soo gasho si fiican isu nadiifi, qubayso oo barfuun ismari oo catar ismari oo si fiican u cadayso, isnadiifi, isqurxi. weliba rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinta jimcaha wuxuu yidhi qofkii xilli fiican taga masaajidka intuu qubaysto oo isnadiifiyo oo isqurxiyo oo maasha allah iska dhigo oo xilli fiican masaajidka taga fakaannamaa qaraba badana oo kamaa qaal calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii qubaysta kadibna baxa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday neef geel ah. yacni xagguu aadaya masaajidka, waad qubaysatay, waad labisatay, barfuun ayaad marsatay iyo catar iyo kareem iyo saliid iyo wixii aad awooday ayaad ismarisay, adigoo carfa ayaad masaajidka aaday oo aadan wax kale u soconin salaad mooye ilaahay dikrigiisi baad u socotaa. rasuulku wuxuu kugu tilmaamay waxaad la mid tahay buu ku yidhi haddii aad xilli fiican tagtid masaajidka maalinta jimca waxaad la mid tahay qof neef geel ah ilaahay ugu dhowaaday ama neef geel ah sadaqaystay. xadiidku wuu dheeriyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waman raaxa fi saacati athaaniyati fakaannamaa qaraba baqara, qofkii saacadda labaad taga oo yacni kan kale ka dambeeya wuxuu la mid yahay qof neef lo ah ilaahay ugu dhowaaday. wuu sii waday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waman raaxa fi saacati athaalitati, saacadda saddexaad qofkii tagana masaajidka wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday fakaannamaa qaraba kabsha aqrana, wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday wan geesa leh. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu sii waday wuxuu yidhi qofka saacadda afraad taga waman raaxa fi saacati araabicati fakaannamaa qaraba dajaaja, wuxuu la mid yahay qofkii saacadda afraad taga oo noqda qofka afraad wuxuu la mid yahay qof digaag sadaqaystay oo ilaahay ugu dhowaaday. qofka saacadda shanaad tagan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wuxuu la mid yahay qof beed la baxay, beed ilaahay ugu dhowaaday, ukun. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu yidhi weliba maalinta jimcaha albaabka masaajidada idaa kaana yowmu ljumca waqafat almalaa'ikatu calaa baabi almasjid, jimcaha markii la gaaro malaa'ig ayaa albaabka masaajidka taagan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam. malaa'ig ayaa taagan buu yidhi albaabka masaajidka, waxay qorayaan dadka siday usoo kala horeeyaan. maasha allah. marka inaad isnadiifiso waa amar horta, qubayska weliba inaad ku xeel dheeraato ayaa lagu amray, waayo way fiican tahay inaad ku dayato nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa ariiqa saxiix ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta jimcaha wuxuu ku sheegay weliba inay ku jirto saacad ducada la aqbalo. fiihi saacatun buu yidhi laa yuwaafiquhaa cabdun muslimin wa huwa qaa'imu yusalli yas'alu allahu tacaala shay-an ilaa acطaahu iyaah. maalinta jimcaha waxaa ku jirta buu yidhi
saacad saacad ducada la aqbalo ayaa ku jirta. waa fursad. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ina amray inaan badino salligiisa calayhi salaatu wasalaam. salliga waa la iisoo bandhigayaa buu yidhi. yacni qof walboo muslim ah waxaa fiican maalinta jimcaha inuu si fiican isu nadiifiyo. isnadiifi intaad awooddo, isnadiifi. nadaafadda ku xeel dheero, weliba cadayga badi. waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadayga aad buu uga hadlay. ya lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaq cinda kulli salaa. salaad walbo inaad caday afka aad ku jiijiido aad iska nadiifiso ayaa kuu fiican haddii aad awooddo. afkaaga oo aad nadiifiso ilaahay ayaa ka raali noqonaayo. marka maalinka jimcaha waa maalin aan la mid ahayn maalmaha kale, waa maalin ciid ah. waxaa fiican ama waxaan kuula talin lahaa maalinta jimcaha hadday kuu soo gasho, kow waxaad ku dadaashaa nadaafadda. badi nadaafadda, si fiican isu nadiifi, iscatareey, isbarfoomi, isqurxi, dharkaa kan u qurxida badan xiro, oo xilli fiican tag masaajidka. tartiib cagaha ku tag, weliba baabuur ha raacin, lianna waxaa kuu fiican inaad u lugayso. ajar ayaad ka helaysaa. tallaabo walbo aad qaada dembigaaga ayaa lagu dhaafaya, tallaabada kalena darajo ayaa lagugu kordhinayaa haddii aad awooddo oo uu masaajidka aanan kaa fogeyn. marka nadaafadda ayaa fiican in raqam waaxid horta aad si fiican isu nadiifiso. intaad awooddo isnadiifiso, kadib ilaahay dartiisa aad u baxdo oo masaajidka aad aado oo aadan wax kale u soconin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo uu werinayay salmaan alfarisi radia allahu canhu wuxuu yidhi, qofkii qubaysta oo isdahiriya, yacni isnadiifiya intuu awoodo, oo iscatareeya, oo isbarfuumiya, oo isqurxiya, oo yacni intii karaankiisa uu sameeyo oo nadaafad ah, kadibna baxa oo masaajidka aada, oo aanan kala geynin laba qof. falaa yufariqu bayna ithnain, laba qof ma kala geyna. yacni laba qof oo iscag fadhid ciriiri kuma samaynaysid, ma dhex fadhiisanaysid, ma ka tallaabsanaysid. dadka laga tallaabsado ma ficna. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, falaa yufariqu bayna ithnain, aanan kala geynin labo, kadibna dukada wixii ilaahay u qoray oo salaad ah. kadibna imaamku markuu hadlo aamusa oo khudbada dhegaysta. qof intaas ma sameeya buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa dembigiisi oo uu galay labada jimcood inta u dhexaysa ayaa loo dhaafayaa buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka nadaafadda mar walba yacni jimcaha keliya kuma koobna, laakiin jimcaha yacni nadaafaddii aad awal samayn jirtay ka badi. nadaafad aad ugu dadaal maalinta jimcaha. dharkaa qorxoon xiro, catarka kan uu qaalisan oo aad haysato marso, si fiican u cadayso, isqurxi, xilli fiican tag masaajidka. adoo faqiira oo laga yaabo inaad waxba haysanin ayaa ilaahay wuxuu ku siinaya insha allah, wuxuu kaala mid yeelayaa qof neef geel ah sadaqaystay. neef geela cayaar mah oo la sadaqaysto. xilli fiican haddii aad masaajidka tagtid oo aad ilaahay xustid, yacni ajar fiican ayaad ka helaysaa. ilaahay qur'aankiisana wuxuuba ku yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascow ilaa dikri illaah wadaru lbayca dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun. maalinta jimcaha haddii aad maqasho dhawaaqa ama aadaanka ama salaada lagugu yeero, u degdeg salaada. fascow ilaa dikrillah, dikri ilaahay usoo degdega. allah wuxuu yidhi u imaada xuska allah, waa salaada iyo khudbada la dhegeysto, ilaahay la xuso, masaajidka la fariisto. usoo degdega intaas. degdeg ma aha yani orod ma, orod waa mamnuuc, orod waa la reebay. tartiib yani xilli fiican tag, kadibna ilaahay xus intaad awoodo xus ilaa khudbada laga gaaraayo. fascow ilaa dikrillah wadarul bayca, bayca isaga taga. bayca waxaaba la yidhi waaba xaaraan xilligaas in wax la gado oo yacni maxal iyo aad furatid oo aad wax ku mashquusho, markaas oo kale waa mamnuuc, waa la reebay. xilliga salaada ma ficno. xilliga salaada wadarul bayca, ilaahay baa wuxuu ku leeyahay ka tag bayca, ka tag. ilaahay amar hadduu ku siiyo waa inaad qaadataa. ilaahay amar hadduu ku siiyo waa waajib. waxaas ha samayn hadduu ku yidhahdo ilaah khalaas meel loogu noqonayo ma jirto. wadarul bayca
beeca kala iibsiga ka taga ganacsiga ka taga dhalikum khayru lakum arrinkaas la soo sheegay ayaa idin khayr badan in kuntum taclamuuna yacni haddaatin kuu wax og buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala salaada markaad dhamaysato iska bax iska shaqayso adoo ilaahay xusayo weliba faidaa qudiyat isalaat fantashiruu fi lard wabtaguu min fadli illah fadliga ilaahay raaso salaada markii laga baxo kadib bax shaqayso laguma diidna ilaahay weliba xuska ilaahay badi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إلهي حس marka maalinka jimcaha sideedaba waa maalmaha kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi way ka fadli badan tahay waxaan kaloo idin leeyahay inaad badisaan salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaad awoodo habeenka jimcaha maalinka jimcaha ku salli nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga ibraahimiyada badi welib allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلي رسولك عليه الصلاة والسلام أتكسر لنا يسوع أن إله يا وحكوسر لنا يا تبنجر من صلى عليه صلاة واحدة صلى 10 صومه قفكي أنا هالمر يوصل لإله يا وحكوسر لنا يا أبو رسولك عليه الصلاة والسلام تبنجر إله أو كوصل لي أو كأمان أو كون حريص ما هو وحل السيستم أجر وفضلي oo aanan helaynin qof walba ilaa qofkii nasiib leh marka intaas ayaan kusoo gabagabeyn lahaa maalinta jimcaha haddii ilaahay ina gaarsiiyo waxaan idin dhihi lahaa nadaafadda ku dadaal oo waxaad badisaa xuska allah oo xilli fiican u degdeg masaajidka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisi badi ayaan idin dhihi lahaa gabagabadii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu